haddii lagu yiraahdo hadda hooyaa dhiig u baahan qofka ugu horeeya dhiigaan bixinay dhahay waa adiga laakiin waxa laga yaabaa dhakhtarka markuu dhiigaaga eego uu hooyana fiiriyo inuu ku yiraahdo dhiigga hooyada laguma shubi karo waayo isku dhiig ma ahidina dhiigaa raadi ani calool hooyo waxaan ku soo jiray 10 bilood wax ku dhow 10 bilood wax ku dhow ayaan calool hooyo ku jiray dhiigna waan lahaa anoo calool hooyo ku jiray su'aasha muhiimka waxay tahay aniga dhiigayga haddii dhiigayga hooyaday maanta haddii lagu shubay dib uu soo gaarayo ama keeda haddii lagu shubo dib uu soo gaarayo 10 bilood calool hooyo aan ku jiray waxaa noo dhaxeeyay xarig 3 taaka oo ilmaha markay dhashaan la gooynayo xudunta wax walba wixii hooyo iga aan uga baahanahay waa la ii keenayay wixii wasaqdeeda ana hooyada lagu soo diray waa la soo celinayay su'aasha markiinka marka waxay tahay calool hooyo markaan ku jiro dhiig waan lahaa labadeena dhiig yaa kala ilaalinayay ilaa hooyo waxa haddaan dunyada soo baxay dhiigaaga laguma shubi karo adeer dhiigeeda laguma shubi karo labadeena dhiig yaa kala ilaalinayay wa fi anfusikum afala tubsirun adduunya intaadan iman ayaa la naga warqabay oo lana hagaaya oo lana qurxinay si qurxoon ilaahay uu noo sameeyay ilaahay wuxuu noo sameeyay waxa loo yaqaan mashiima ama loo yaqaan placenta hooyo wixii wax markay ka yimaadaan hooyo waxa ka imaanaya cuntadii aan u baahnayn waxa ka imaanaya oksijiinta aan u baahnayn waxa ka imaanaya dawadii aan u baahnayn hooyo markii laga soo qaado waxay soo maraysaa warshad loo yaqaan mashiima oo ilmaha markii la dhala soo raacda mashiimada maxay sameynaysaa waxa la sifeynayaa wax alla wixii ilmaha u gudbaya wax alla wixii ilmaha dhibaya waa laga reebaya meeshaas waxa adiga gudub adiga joog adiga gudub adiga joog ayaa waxa lagu sameeyaa mashiimada lagu sameeyaa mashiimadaas albaabkeeda dambe xuduntan anaga nooga dhagan markaan dhalana la gooynayo albaabka labaad ee kaga dhagan tahay wixii soo gudba kaliya un bay soo qaadaa midan xudunta xariga xudunta nooga dhagan waxaad isweydiisaa hooyo bini aadamka noogu dhow hooyo door ma ku lahayd sameynta mashiimada aaba door ma ku lahaa sameynta mashiimada meesha waxaad ka fahmaysaa in la naga warqabo si qurxoon ilaahay uu noo sameeyay inuu ilaahay si qurxoon noo sameeyay oo waxaan u baahanahay dhalay nooga adeegayay oksijiin markaan banaanka imaana sankeena shaqeynay laakiin marka caloosha hooyo ku jirno caloosha oksijiinta hooyo soo qaadata anaga la nooga keenaa la noo marsiyaa saxaradeena iyo kaadideen wixii yimaado hooyo lagu soo celiyaa si qurxoon uu ilaahay noo sameeyay